munaasabadan oo ahayd mid casho sharaf ah ayaa waxaa loogu mahad celinayay guddigii qabanqaabada toddobaadka xurriyadda ayaa waxaa xalay saqdii dhexe lagu qabtay xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya waxaana munaasabadan goobjoog ka ahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo gudoomiyaha baarlamaanka Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guleed Khadar iyo xildhibaanada labada gole saraakiil ciidan iyo safiire ka kala socday dawladaha aan dariska nahay iyo maamulka gobolka Banaadir iyo ururada bulshada rayidka iyo marti sharaf kale munaasabadaas lagu casuumay muddadii munaasabada socotay ayaa waxaa loo mahad celiyay dadkii qayb ka ahaa toddobaadkii xurriyadda oo guddiga horay ee dawladda Soomaaliya u xil saartay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo khudbad ku bixisay luqadda Ingiriiska ka jeediyay madasha ayaa waxa uu mahad celiyay dhammaan mas'uuliyiintii ka shaqeysay xusuuska munaasabadaha toddobaadkii xurriyadda iyo diblomaasiyiinta ka kala socday wadamada caalamka. Ladies and gentlemen, let me take this opportunity to welcome you to Villa Somalia in this historical mudanayaal iyo marweyn aan fursadan uga faa'iideysto inaan idinku soo dhaweeyo Villa Somalia. run ahaantii waan ku faraxsanahay inaan idinku martigeliyo halkan si aad noogala qayb qaadataan dabaaldegga sanad guurada 59aad ee ka soo wareegtay madaxbannaanideena. Somalis around the globe have been celebrating this joyous occasion throughout the past week. Soomaalida ku dhaqan daafaha caalamku waxay munaasabadan qiimaha leh u dabaaldegayeen toddobaadkii la soo dhaafay oo dhan. waa damaashaad Soomaalida ugu suntan rajo iyo farxad. mudanayaal iyo marweyn sida aad ka warqabtaan Soomaaliya waxay sanadihii la soo dhaafay sameysay horumar xawli ah. waxaana ku faraxsanahay inaan idin la wadaago in dawladdeedu ay gaarto guulo waaweyn intii aan talada hayay walow ay caqabado jiraan. With some challenges and difficulties. In the economic front, Somalia has made great progress in fighting corruption. dhanka dhaqaalaha Soomaaliya waxay horumar la taaban kara ka sameysay la dagaalanka musuqmaasuqa, sare u qaadida dakhliga gudaha iyo buuxinta shuruudaha deyn cafinta ee hay'adda lacagta adduunka IMF. la dagaalanka musuqmaasuqa iyo dib u habeynta hanaanka dawladnimada ayaa dawladdeena suura geliyay inay si joogto ah u bixiso mushaaraadka shaqaalaha dawladda iyo in meesha laga saaro dhaqaalihii yaraa ee aan haysanay ee la lunsan jiray. waxaa intaasi dheer dawladdeenu waxay ku guuleysatay inay xalliso gadaloolooyinka hanaanka maaliyadda. waxaa naga ugu dambeynna munaasabadu waxay ku soo gabagabowday jawi nabdoon oo u muuqday mid la iskugu marxabeynayay toddobaadkii xurriyadda maadaama munaasabado badan oo isxigay hore loo qabtay. Cabdirashiid Sandheere, raadiyaha iyo telefishinka SBC, Muqdisho.